24 saac ee la soo dhaafay ayaa laba ruux waxa uu yaxaas iyo masas ay ku dhibaateeyeen deegaanada ay fatahaaduhu ka jiraan iyadoo xalay abaara 8 fiidnimo yaxaas uu ku qaniinay mid kamid ah qaxootiga degan kaamka Isnay Biyaaso xilli uu ku weesaysanayay biyo ka yimid webiga Shabeelle goobta uu yaxaasku ku qaniinay ninkani ayaa webiga sidaasi uga sii fogeen waxaana dadkii u gurmaday kamid ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Cismaan Ibrahim Cali waxa uuna ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen waxaa soo baxay yaxaasa waxa soo baxay biyo wuxuu u yimid gurigiisii oo u dhow halkii iyo eeriyadii biyo wuu qaniinay waana la soo wacay gargaar degdeg ah oo tagnay alxamdulillah taleefankeena hayeen dan ilaahay wuxuu soo haleeshay in aan mataqaana isbitaal aan ugu soo carno wixii cuni lahaayeen iyo wixii dhaqaalahay ka qaaday haddana uu darsoontay cayayaankii ka soo dhaxbaxay biyo inay mataqaana ay qaniinaan sida biri dhacday oo kaleeto doon la saarnaa ayadoo u socoto mataqaana dhinaca Muqdisho gaari ka raacaan in ay ka raacaan rawana Kongo in oo ma soo galay gabar uu ku qaniin canuga faraqa u saarnay tuurtay canuga biyo ku dhacay asagoo tacbaan laga soo bixin la soo sheegay aan gargaar aan u aaday gabadhina mataqaana masmeel halis uu ka qaniinay haddana caawa darkaysan marka ummadda Soomaaliyeed meel aan meel joogto waxaan u baaqayaa ummadan walaalahooda ah dhibaataysan mataqaana in ay wax allaale iyo wixii tabar dhaaf weysay in la soo gaaraan gacan ay ka qaataan Dr. Maxamed Muuse Jilacow ayaa ka warbixiyay xaaladda bukaankani oo yaxaasku qaniinay oo gurmad degdeg ah loogu sameeyay isbitaalka Interso Xasan Mukhtar waxa soo dhaawacay yaxaas oo sida uu noo sheegay meel ay yarabiyo ku fastaheen oo weliga asigoo dhex marayo uu ku soo gooyay yaxaas ayaa lugta mataqaana midib ka soo dhaawacay alxamdulillah hadda waa ka caafimaad qabyaa dhaawac weyn qabyo adiga waxay noqotay dhowr qodob insha Allah hadana waa la daaweeyay insha Allah sidoo kale Maxamed Saadiye Sheekh ayaa walaac ka muujisay xaaladdan cusub ee la soo diristay dadkani hore fatahaadaha ula daala dhacayay waxa hadda dhibaato soo korortay bahalladii soo raacay biyaha in ay dadkii cunayaan xalay waxay cunaan wiil maalin sii horeysay waxa noola sheegay garaash iyo Kongo kala dhexdooda marka uu dadku xoogaa uu kala dadku uu shanqarti yaraatay ay gabar ku soo aad meesha yaxaasa gabadhi qaadaa la yirnina meel fog ka arkayay ninka waa raadiyay wuxuu rishir oo geedihii iyo meel uu la galayaanba waa asnaftigiisa baqaayay lan kaligiisu ahay marka gabadhaasna waa la laayahay wiilna waa cunyay gabar kala ma saacuna la yiri laakiin anagu aanan arag wiilka deertan istaalka u yaala si kastaba ha ahaatee muddo 2 bil ah ayaa fatahaado xoogan ay ku dhifteen dadka ku nool deegaano hoostaga degmooyinka Jowhar iyo Balcad ma jirto haba yaraatee cid kaalmo bini'aadanimo la soo gaartay dadkani fatahaaduhu ay halakeeyeen Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.